wacan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay filim American ah oo lagu magacaabo Billy Madison. Daawo oo iska taxadar. Billy Madison waa wiil zambac ah oo 27 sano jir ah, kaasi oo u dhaqmo sidii carruurta oo kale, isaga oo aanan wax camal ah samaynin. Maskax ahaan ma uusan korin ilaa yaraantiisa, taasi oo niyad ku noqotay aabihiisa Brian. Brian waa nin maalqabeen ah oo maqaayado waaweyn leh, waxa uuna mar walba rajeynaya inuu inankiisa uu ka dhaxlo dhaqaalihiisa, laakiin isaga waa mid aanan aqli lahayn. Maalin maalmaha ka mid ah, Brian waxa uu wacay la taliyaashiisa dhaqaalaha oo dhan, waxaana ka mid ah laba ka mid ah ku-xigeenadiisa oo lagu magacaabo Eric iyo Carl, ayagoo ka caawiya Brian inuu qaato go'aamada xasaasiga ah. Brian wuxuu rabaa inuu caleema saaro. Brian wuxuu rabaa inuu sheego inuu iska casilay shaqada maadaama uu gaboobay, laakiin durbadiiba inankiisa zambac ah ayaa bilaabay inuu dheelo. Eric oo ah gacanyaraha Brian waa mid neceb inankaas, isaga oo wax walba u sameeyo sidii uu zambac usii ahaan lahaa. Brian oo ah aabaha ayaa isagoo caraysan waxa uu ka eriyay inankiisa Billy shirki. Markii uu shirki dhamaaday, ninkii Eric ahaa oo isaga doonayay inuu booska xalaaleysto wuxuu aabihiis ku qanciyay in inankiisa uu zambac yahay uusan u qalmin inuu ka dhaxlo ganacsigan. Laakiin Carl ayaa sheegay in uu weli rajo leeyahay inankaasi. Maalintii xigtay, inankii Billy ahaa ayaa waxaa qorshe u keenay aabihiisa inuu waxbarashada dib ugu laabto, isagoo ballan qaaday in fasal walbaba uu 2 asbuuc ku dhammaysan doono. Maalintii xigtay ee iskoolka uu aadi lahaa Billy, naagtii shaqaalaha ahayd ee kuwaaniinta lagu magacaabo ayaa waxay u samaysay sanduuq yar uu quraacda ku qaato. Markii uu iskoolka imaaday, qofkii ugu horreeyay uu arkay waxay ahayd inaan lagu magacaabo Veronica oo barra ka ah iskoolka. Markii uu galaaska aaday, durbadii wuxuu la kulmay saaxiibadiisa. Durbadii waa ay isfahmeen maadaama ay isku dhaqan yihiin. Markii uu galaaska aaday, waxay bilaabeen inay sheekooyinka dhageystaan, duhurkiina ay seexdaan, oo ah waxa ay durbadiiba sameeyaan carruurta da'da yar. Billy waa mid ku dhiban isticmaalka suuliga maadaama uu ka gaaban yahay. Aabihiisa waa uu ku farxay, xaflad weynna ayuu u dhigay markuu ka qalin jebiyey fasalkii 1aad ee dugsiga hoose. Waxa uuna u dhigay xaflad weyn, kii oo dhan waa ay ku farxeen marka laga reebo Eric oo asaga doonayo in Billy uu zambac sii ahaado si uu u dhaxlo ganacsiga aabihiisa. Fasalka 2aad waa mid ka yara adag kii 1aad, waxaana dhacday in Billy uu la tartamo inan yar. Waxaana cajiib noqotay markii uu ka guuleystay inantii kadib markuu si saxan uu u qoray ereyga coach. Taasna waxay keentay inuu ka gudbo fasalkii 2aad, xaflad weynna uu dhigo. Maalintii xigtay, Billy waxa uu gudbay fasalka 3aad. Markii iskoolka tagay, waxaa macallin u noqday maamulaha iskoolka ee lagu magacaabo Anderson. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Billy oo xaflad weyn dhigay maadaama uu ku gudbay fasalkii 3aad, taasi oo ah mid ka weyneed labadii hore. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Eric oo qorsheynayo inuu dhabar ka toogto Billy. Baaritaan dheer wuxuu ogaaday maamulaha iskoolka inuu horey u ahaan jiray nin tartanka feerka dheelo, isagoo nin kow kaga siiyey, isagoo arrintaas ku rakaatenayo, isagoo u sheegay in arrintan haddii la ogaado in laga erin doono iskoolka haddii uusan u qaban waxa uu doonayo, isagoo rabo inuu dadka u sheego in Billy uu lacag dhiibay si uu galaaska uga gudbo. Muuqaalka xigo waxaynu arkaynaa Billy oo aaday high schoolka maadaama uu ka gudbay fasalkii 8aad. Markii la gaaray, Billy waxa uu wacay saaxiibkiisa oo uu yaraantiisa foodeyn jiray oo lagu magacaabo Danny, waxa uuna ka codsaday inuu cafiyo. waa uuna cafiyey. Koolka kadib, Danny waxa uu ka tirtiray Billy liiska dadka uu doonayo inuu kharijiyo. Maalintii xigtay, maamulaha iskoolka ee Anderson oo uu Eric rakaateeyay waxa uu sheegay in Billy uu laaluushay si uu ka gudbo dugsiga hoose. Durbadiiba aabihiis markuu maqlay waa uu ka xanaaqay arrintaasi, taasi oo keentay in aabihiisa Brian uu kambanigii ku wareejiyo gacanyarihiisa Eric, taasi oo niyad ku noqotay Billy. Billyna wuxuu bilaabay inuu dib ugu noqdo noloshiisa horeed ee cayaarta iyo dhildheelka ku dhisneed. Maalintii xigtay, Veronica ayaa u timaaday, iyadoo bilowday inay garaacdo si ay u dhiirigeliso, isla markaana u sheegtay inuusan niyad jabin
isagoo aanan u dadaalin booskiisa. Maalintii xigtay waxaa dhacday in tartan uu u bilowdo Billy iyo Eric, waxaana dhacday in Eric uu ku guuleysto xisaabta halka Billyna uu ku guuleysto cunno karinta. Maalintii xigtay oo su'aalaha la isweydiinayay waxaa dhacday in su'aal la weydiiyo Eric, maadaama uusan jawaab hayn waxa uu bilaabay inuu biskoolada la soo baxo si uu ku takhaluso Billy, isla markaasna booskiisa u ilaalsado. waxa uu bilaabay inuu biskoolada ku aadiyo Billy, laakiin durbadii waxaa badbaadiyey inankii uu cabis ka dalbaday Billy ee Daniel lagu magacaabi jiray, isagoo xabad ugu dhuftay xagga dambe. xafladii qalinjabinta ee high schoolka markii la gaaray, Billy waxa uu go'aansaday inuu kambani ku wareejiyo Carl oo ah nin daacad ah. muuqaalkana meeshaas ayuu ka yahay daawade.